waa muuqaalada dhul qurux badan in ay gooni noqdaanna waxay u tahay astaan qaran. Jasiiradaha Faroes waxay ku jiraan halgan sare oo ay ku helaan madax bannaani isboorti. Kubadda cagta waxay dadka jasiiradan siisay fursad ay ku soo bandhigaan wadaniyadooda iyagoo u maraya aqoonsiga FIFA ay ku aqoonsatay kooxda qaranka. waxaan sidoo kale dhabtii dheelnaa isboortiga kale ma lahan dareenka aan leenahay oo kale sababta oo ah waxaan matalaynaa dalkeenna. Ciyaartoyda cid walba sidaas ayay la doonayaan. Ciyaartoyda oo kaliya ma ahan kuwa ku baaqaya isbeddel. waa sida inaysan cadaalad ahayn sida qof kasta oo adduunka jooga ayaan u dabaashaa taasina waa waxa kaliya ee dib iga celinaya inaan gaaro riyadeeda ugu weyn. Guddiga Olombikada caalamiga ah waxa ay sheegayaan inay tahay inay aqoonsadaan dhammaan wadamada. Ra'iisul Wasaaraha Faroes waxa uu sheegay inaysan taasi macno samaynayn. ma fahmi karo mana qabo inay caqligal tahay waxaanu nahay dal ismaamula xubin ayaanu ka nahay ururo badan oo caalami ah sidaas daraadeed dhalinyaro badan ayay ku tahay rajo xumo haddii aanay ka qayb galin ciyaaraha Olombikada. Faroes waxay si xooggan u maalgelinaysaa isboortiga iyaga oo aan wax rajo ah ka qabin in ay bilad ka helaan Olombikada balse cabsida mustaqbalka ayaa ah in dhalinyarada aysan gaarin heerka awoodooda.